hay-adda Direct Aid ayaa munaasabad ballaaran ku soo bandhigtay adeegyada ballaaran ee bulshada reer Gabiley ay u hayso isla markaasina xafladda daafurka sanadusyeedka 2017 iyo 2018 ayaa lagu qabtay ardayda dugsiga Al-Irshaad ee ka kooban qaybaha boardinka iyo waliba sidoo kale iskuulka dhayga loo yaqaano sidoo kale wafdigan hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa kormeer ballaaran ku soo maray qaybaha kala duwan ee dugsiga Al-Irshaad munaasabadan oo si ballaaran loo soo agaasimo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka warshadaha maayarka magaalada Gabiley culumaawadin aad u tiro badan oo kamid yahay Sheekh Almis Sheekh Yaxye iyo sidoo kale Sheekh Magdaghawi culumaawadinka iyo waliba hay'adda iyo mas'uuliyiinta hay'addaasi Maxamed Aadan Askar iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyn baa halkaasi la kooban ka jeeday mas'uuliyiinta hay'addaasi gacanta ku haysa oo uu ka mid yahay Mustafa Boos oo ka mid ah mas'uuliyiinta dugsigaasi iyo sidoo kale Maxamed Aadan Askar oo isna ka mid ah mas'uuliyiinta hay'addaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa تحية عطرة فواحة بالمسك تحية طيبة مباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متحدثا باسمي وباسم طلبة هذا المدرسة سمعنا كبر برشية نغبية وكيو وأكدكي متضبطا بيلكنا نظر جوغيو انت بارشة ديغتاء وليبو قسلتيو انت بعدنا ما يساب لسيني جوغتاء أبو صامري أفريا لغاتنكي أغسط 2014 ayaanu bilownay waxaanu ku bilownay 150 arday oo agoona oo laga qoray gobolka Gabiley sanadkii labaad waxaanu ku darnay 50 sanadkii saddexaad waxaanu ku darnay 50 ardaydii hay'adda jamciyadda caawin mubaashir ay ugu tala galeen waxay noqdeen 250 arday oo ka faa'iideystay midhihii loogu tala galay 250 ardayna hadda way buuxaan waana dhameystirayeen midhoogii koobaadna waa idinka maanta arkaya ereyada iyo waxyaabaha ka soo yeedhaya markasku waxa uu ka kooban yahay 13 section ama qaybood oo shaqeeya si ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waxa weeyaan xaruntan aynu maanta fadhino runtii waxa muxuuha iskale ama maamusha ma ay hoos tagtaa dadaalada hay'adda Direct Aid ama jamciyadda caawin mubaashir waddanka Soomaaliland ay ka wado dhinaca horumarinta waxa weeyaan waa markii ugu horeysay ee aynu xaflad noocan u sameeyno xarunteena mudane wasiir waxaan idin sheegayaa ardayda halkan fadhida marka laga tago ardayda dhayga ardayda muxuu ahaa hooyga ahi waxay ka kala yimaadeen ma aha nasiibka ugu badan ha qaataan Gabiley iyo hareeraheedu oo waxay dheeriba ninkii u dhow ayaa kala hilbabaxeen laakiin waxa joogta arday ka timid gobolka Saraar gobolka Togdheer gobolka Maroodijeer iyo muxuu ahaa gobolada kale ee Soomaaliland oo dhan way ka kooban yihiin runtii ha ku kala bataan waxaan runtii aanu ku salaynay ardayda hooyga ah ardaydii danyarta ahayd ee tahli weyday inay waxbarasho helaan ayaa runtii aanu ku bilownay muxuu ahaa xarunta wejiga labaad ee doonayna insha Allah tacaala ilaahay wuu noo hirgelin doonaa waxa imaka noogu horeeya dugsigii sare oo dugsigan hoose dhexe ardayda loo diyaarinayo oo aan ugu tala galnay insha Allah tacaala inuu noqdo dugsi farsamada gacanta insha Allah tacaala si ardayda muxuu ahaa dugsiga sare markay dhameeyaanba ay u suurta gasho noloshooda inay maareeyaan oo isla markiiba meel kaga aadaan nolosha aynu muxuu ahaa iyo waddankeena geesta kalena uu qaashi waxgaradka iyo waalidiinta macallimiinta iyo mushaaykhda reer Gabiley ee munaasabadaasi ka qayb gashay ayaa u mahadnaqay dugsigaasi faa'iidadu reer Gabiley u hayo intaas oo dhalinyaro oo wax badan oo wajigooda aanay ka muuqanin gaajo
iyo dhiif iyo cadho iyo waxba aanay ka muuqanin wejigooda farxadi ka wada muuqato markhaati waxay u tahay furaash qurux badan inay ka soo tooseen markhaati waxay u tahay nolol maalmoodkooda in si fiican loo kafaalo qaaday intaasa alxamdulilah rabbilcaalamiin deeqsi oo ilaahay looga mahad celiye macallimiintii waxaa baxay jazaahum allahu khayran maamulkii iyo hogaankii u hore baxayna jazaahum allahu khayran intaasoo dhan hor socoto wasaaradda dowrkan wasiirkeennii cabdullaahi horkacayo seefta galka kala baxay waxaan si gaar runtii mahadda ilaahay kadib ugu mahadinaynaa hay-adda mashruucan weyne midhihiisii u horreeyey aynu arkayna maanta waxa weeyaan wax badan inaga kafaalo qaaday waxaan leenahay ilaahay ha uga dhigo fii miisaani xasanaatihim dhammaan cid alla ciddii waxay ka qayb gashay oo madaxa hay-adda waxa weeyaan askar hadda halkan uu ka mid yahay ixsaanna waxa ugu weyn qof waxa weeyaan cuntadiisii iyo wax alla wuxuu baahay la siiyey oo loogu daray waxbarasho oo maskaxdiisiina la dhisay wax ka dulbaday ma jiro rasuulku aniga maalintii ilmahayga ee lagu soo dirayay inaan anu aayahay aaya adeer ayaa meeshaa keenay waxaan islahaa halka aragtidiisa uunaad aragtid ee muxuu kaaga fobaynayaa nacam mid dib u qoondeeyey ayuu aniga ilaaha oo waxaa ii yimid oo fasaxiiba ii yimid niman 16 jira ama 15 jira oo kaasaya oo kaadhidiiska maynay wax u sheegay gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda warshadaha maayarka magaalada Gabiley ayaa si ballaaran u amaanay waxqabadka ka socda hay'adda Direct Aid ay u hayso bulshada reer Gabiley guud ahaanba dugsigani boardingka ah mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay'adda Direct Aid iyo maamulayaasha dugsiyada Al-Sheikh mashruucan waxaa gacanta ku haysa hay'adda Direct Aid runtii hay'adda waa ugu mahad celinaynaa waa hay'adda aad arkaysaan 250 agoomaheennii oo agoomihii qaranka Soomaaliland Gabiley oo badnaateen inay kafaalo qaaday waxbarashadooda caafimaadkooda iyo dhammaan wixii ilmo yar oo guri ka soo toosaya u baahnaa aad iyo aad runtii hay'adda ugu mahad celinaynaa ee markii uu horreeyay bulshada loo baahinayay adeegga halka lagu hayo التعليمي والتربوي والذي تشرف عليه جمعية العون المباشر حيث تعتبر جمعية العون المباشر من أنشط الجمعيات التي تعمل تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الوطنية. وحنا يقولون معها قفك هويدي والد سواي وحوي قفك ثقافة يا قوت كوالد وحنا قلنا وحنا آخرين أقولك رسمي جوا كوي لكن ما أنت قف أقول له أو من مستقبل نور يعني وأقول دينية تمام أنت ما برتي وحنا لنا عيد كستو كقيب قاتل هاي بيزاك حسنات هاي مقدر مامك الشاب أنتي كنت بعدي إن سوق جالسين إيش بدنا كان لوجا دستي لكن أساسه شغال مس ولوجو رمي لما بعدي كسر شقيسي يعد ما أنت قاعد تقوي السماء أنت اللي بكره الله وحرسته أنت النور ما إلهي أكيد سايسيو ووحلو فرحويا شرف إنه قطعي أنت ضعين كاسة يعرو عين كاسي أي نوصو قران هلكن هو أصنع نقول دوران مستقبلك هو آيها تدكوك يدكوك عن فعلتهم هل تيجي وحويا عاومة توصى ويا توصى أنا سويت اللي وين كنت اللي بدوصة معها كنت اللي صور عين معها وتوصى أنت لو ترجعي لسوق جالسية ويا ما هو أستاذ محمد سيد يا دين المسؤول نهيبا وحنا لو جبهي وهو عسيرنا اللي وحبرشنا فوق هذا وين كنت دارنا ونمعان ديك إبراهيم أيان لحاتي يبحيدين محمد طاهر تي في قرنك قبيلي